maamulka Chelsea oo go'aan ka gaaray mustaqbalka Mauricio Pochettino oo ay taageerayaashu dalbadeen in la ceeriyo haddaba maxay ku heshiiyeen muuqaalkan ayaa kugula wadaagi doona ee soo dhaw daawade balse marka hore like sar muuqaalka siina share kare milkiilayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa go'aan ka gaaray tababare Mauricio Pochettino kadib guuldaradii cusleed oo ay kala kulmeen Everton maalintii shalay ahayd taas oo keentay in taageerayaasha kooxdu ay u soo jeediyaan milkiilayaasha inay shaqada ka ceeriyaan tababarahani Chelsea ayaa u dhaadhacday kaalinta 12aad ee horyaalka Premier League markii ay Everton ku soo karbaashtay 2 gool waxba waxaana ay fadhiyaan oo ay ku jiraan booskii ay ku dhameysteen xiliyaareedkii hore ee waqtiga dambe sida ku meelkaarka ah loogu dhiibay Frank Lampard maatiga Mauricio Pochettino iyo lacag badan oo ay kooxdu ku qarash gareysay ciyaartooy ay ka mid yihiin Moses Caicedo, Romeo Lavia, Cole Palmer iyo Christopher Nkunku ayaa la filayay in naadiga sare u soo qaadi doonaan laakiin waxa ay horyaalka kaga jiraan boos niyad jab ah iyaga oo 8 ciyaarood ay ugu dambeeyay horyaalka Premier League kaliya badiyay 2 kulan markii ay dhamaatay ciyaartii Everton taageerayaasha Chelsea ayaa dalbaday in shaqada laga ceeriyo Mauricio Pochettino oo ay sheegeen in aan loo dulqaadan kareynin guuldarooyinkiisa laakiin maamulka Chelsea ayaa go'aansaday in aanay ka jawaabin talabka taageerayaasha Tory Bowley iyo saamilayda kale ee kooxda ayaa waxay go'aansadeen inuu shaqada sii joogo tababare Mauricio Pochettino oo la siiyo fursad uu kooxda isugu dabarido waxaana ay sidoo kale qorsheynayaan in suuqa January ay kooxda keenaan weeriyaan dabiici ah iyadoo shaashadoodu ay saaran tahay laacibka reer Nigeria isla markaana u ciyaara kooxda Napoli ee Victor Osimhen